marka hore waxaan leeyahay dadka Ilaahay laga cabsado nabi Maxamed lagu saliyo Ilaahayna lagu xirmo waxaan laga reebana laga hadlo laga haro waxaan laga reebay Ilaahay waxaan farayna aan fulino aan ku qalsoonaano Ilaahay dagaaladan ka socday hadda maalmaha dhowrka bari oo googooska ahaa magaalada Gaalkacyo nagagaarkeeda waa iska nasiib daro iyadoo hadda dadkan muddo fiican ay waaga horena isku nolol lahaayeen magaalada markii hadii dagaal dhacayna iyadoo la kala maqnaan muddo dhowr sano hadana la soo noolay maalin kasta inay iska dhacaan dagaal nasiib daro horta dagaalada maalmahan ka socday meesha magaalada Gaalkacyo dhinaca galbeedka waa dagaal gadar qaawana ah way meel laga dhisayo mashariiq laga dhisayo oo ay labada meeloodba u danta ugu jirto inuu heer ciidan isu bedelo waarina Mareykan laga filay standardka magaalada Gaalkacyo inuu ahaado aan laga filay haddii lahaanshaha dhulka la isku hayo dhulka lahaanshihiisa la isku hayo ilaa iyo magaalada Gaalkacyo maalintii la aasaasay ilaa maanta raasoo la joogo sidii lagu soo degay iyo sidii cid walba ku soo degtay iyo haddii burbur dhacay sidii lagu soo wada degay kulli waa taariikhaysan tahay wax marka cid loo qaybshay meeshay dhisanayso in iyagu ka noqoto bulshada militaar ma jirto haddii meesha ay markaas cid wax sheeganaysa ama dawlad hasiisa ama cid kale hasiisa ay jirto wax ku sheeganaysa system sharci oo la maraba jira dadku laakiin meesha xoogaa yar wax laga dhisay ama hawl yar laga qabanayo in xoog ciidan loo bedelo aniga waxaan u arkaa inay ismarintaas arrin fiican ahay dadkana ma aragtay arintu in la bislaada baan anigu filayo la isbedelay oo heer wanaagsan la marayo oo dadku dad xaaje gali kara yahay laakiin haddii wili xaajadu ay xabada tahay waxaan filayaa inay tahay nolosha iyo jiritaanka inay lid ku tahay marka anigu cid markasta bilaabaysa waxaan leeyahay inaanay arintaas la joojiyo in danta dalka iyo dadku ay ku jirto waxyaabaha ilaa hadda dadku la fahmi lahayn waxa weeye oo qolada dhinaca galmudugtuna ay ku doodayaan waxa weeye in dhul iyagu ay leeyihiin Puntland ay ka haysto deegaanadoodii Puntland ay maxjar ka dhisanayso ay wadooyin ka samaysanayso arrimahaas maxaa koranaa anigu sidii Soomaaliya markii la joogay loo kala deganaana waa la garanaya sidii intii burbur ku dhacayna hadda sidii loo soo kala deganaa waa la garanaya dadka Soomaaliya hadii nabad tahay waa la wada deegi karaa meel kasta markay nabad tahay meel kasta waa la wada deegi karaa haddii nabad ahayn nabad la'aanta keenaysa dadkii wada degi jiray inay wada degi waayaan dadkii magaalada joogay oo mas'uuliyiinta ahaa iyo dadkii deegaanka ku dhashay intii waa joogan sidii loo kala lahaa lahaanshihi haddii lahaansho tahay sharci hanaan iyo nidaam baa jira laakiin hadda deegaankan Puntland ay degan tahay oo iyagu ay sharciyan u leedahay waa joogay markii burburka markii la isku soo noqdayna waa joogay burburka in yar ka dibaanay aniga ayaa markii la heshiiyay oo xamar lagu heshiiyay SNA oo cajiid hogaaminayay SSDF waqtigeeda Cabdullaahi soo hogaaminayay heshiiska Gaalkacyo lagu degay markii la galay heshiiskaas oo la soo qaatay heshiiskaas fulintiisii cid dhaqaaqda ayaa la waayay oo qolada kale inta la xiriirto qolada kale u tagta oo dadka iyo deegaanka isu soo fudha aniga ayuu ahaa ninkii tagay iyo Coon Cali Bixi oo dhintay baan ugu tagnay walaalaha iyo waxaan ugu tagnay 3 xiglo ayay joogeen markaas ciidankoodu Puntland ciidankeedu markaas wuxuu joogay waxay ahayd nooradiis SDF baa markaa Puntland lama dhisin wuxuu joogay meesha la yiraahdo dagaari shadeeda si heshiiska loo fuliyay wadada ana furay ana goobtooda ugu tagay si maslaxada ay u fusho ugu tagay waftigii oo sii maray waxaan sii maray 3 xiglo waxaan sii maray bandiiraley
waxaan sii maray waxaan ku raadaay galinsoor hadaade iyo meel u dhaxaysay iyo galinsoor iyo waftigii markaa SN ay noogu yimaad markaasaanu baris ku qabanay oo aan ku wada hadalka baadin cadaadan tagna inta ka dambeysay marka waxaan bilaabay ilaa maalintii ciidanka aan kala qaadnay anagu aan soo qaaday maalin kasta tuulooyinkan taagna magaalada nabad baa lagu soo wada degay isfaham xoog lagu soo degin haddii magaalada dagaal ka dhacay waag hor lagu dagaalamay dagaalku lagu diriray gacanta dhinaca SSDF ayay ku dhacday haddii ku dhacdayna waxaa la ogaan waaya maxaa keenay in la heshiiyo si dalkii iyo dadkii dagaalkii haddii waxba socon waayay hadduu dheeraaday haddii noloshii iyo nabadda xumaatay cid walba baahida waxay u qabtay inay maxaan ku radaa nabad hesho ayay u qabtay taasu waxay keentay marka in la wada hadlo mar labaadna noloshii la soo celiyo waa lagu guulaystay kabacdina noloshii kadibna bisayl baa keenay marka in sidaas la yeelo anaa soo daadaheeyey dhankan markaa galmudug oo SN anaa soo daadaheeya anaa isu keenay iyagii ciidamadii iyo odayaashii iyo dadkii waxay gala soo qayb galay Coon Cali Bixi waa dhinta Allah u naxariiste kadib waxay gala soo qayb galay maxaan ku raadaaye Carays oo isaguna tagay wadada ilaa dhul Soomaaliyeed tagay inta waxaan u tagaynay in magaalada Camirato nolosheedana soo noqoto nabadeedu ay soo noqoto sharafteedu soo noqoto dadkeedii walaalaha ku kala dhibay iyagoo walaalaha ay sii yimaadaan shaqaystaan noloshooda ay maxaan ku raadaaye hagaagsadaan iyo waxbarashadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda ay dhistaan laakiin meel maxaan ku raadaaye meelkii dhagax la faagaba qori la soo ordayo oo ciidan laga jawaabayo ujeedadii lagu digay iyo wixii lagu heshiiyay iyo wixii la soo midnuma taas waxaan u soo jeedinayaa qoladan inaan walaalaha in la joojiyo arintaas qori kaga jawaabin meel dhisanayo laakiin meel dhisanayo nabaday ku xiran tahay wax heshiis ay ku xiran hadda marka heshiiska noocaas oo jiro oo saar lagu soo heshiiyay lagu soo wadigay maxaa keenay in dagaal la ka dhaca magaalada Gaalkacyo waxa keenay anigu waxaan leeyahay dadkii heshiiskii malaha soo gaaray iyo dadkii taariikhda la socday baa dhamaaday malaha dhalinyaro dadkii kale intii kale ka awoodsan qoriga awoodda biday ayaa badatay sabab ku imaan karta magaaladan aan 17 sano ka hor baan dadkan isu keen 17 kibar halkan la soo degay oo dib nolosha u bilaawtay maanta dabaqya ku yaal cid marka bulisiya militaarada iyo tom balaanka magaalada lagu ballamiyay nima jirto lagu ballamiyay oo ka jawaabayay marka arintaas waxaan u arkaa inaan hadda arinta isku qabsiga inaan gardarrada loo sinay ayaan u arkaa marka gardarrada hadaan loo sinayn hadii la yiraahdo wada hadlo oo laga heshiiyo anagu waan soo dhaweynayna laakiin gardarrada xabadda taagan oo halkan qof baan boqol sanay baawurta ninkaaba orday oo joojinay dawladnimo ma dadnimo ma dadka u deegaanna ma walaal arin taariikh khaas ah leeyahay taariikh khaas oo leedahay hanaan baa dhulka dadku wada degan yahay adduunka dawladaha wada yar u dhaxaysa wax ku wada hadlaana ma jiraan marka wadadaas yar u dhaxaysa dhag qolobo badankeeda hawsheeda ay ka haysataa laakiin qolada kale meesheeda intay ku qabsato markaas oranaysa halkan anaga lahayn ma jirto ugu dambeyntii idinka Puntland magaalada waatana dagaal baa ka socda dadkii qaxbay galeen wayaha kala yaacaya maxaa idin qorshaa anaga Puntland orta waxay soo markastaba ku taagan tahay wadada nabadda markastana waxay diyaar u tahay inay waxay soo gadaraysaa isdifaacda uma jirto inay cid gadaraysato ama cid ku xadgudubto nabadeeda galyadeeda inay sugto dadka kalena tiis aysan ku xadgudubin ay diyaar u tahay wixii gadarro la soo aadana haddii ay nabadeeda sugayso waxyaabaha ay u sugayso nabadeeda ayay ku jirtaa laakiin dalqabsi ma dul durugsina ma cid gadaraysina ma xaq bay leedahay istifaacada wax ku soo xadgudba marka taasana anagu aan dhowrayna halkan hadda anagu dhowr bari baan joogay hadda oo maalmihi hore wax dhacayeen ma joogin anagu waanu isxakameynayna inaan dhanka yaga waxba naga iman
haddina lagu soo xadgudbana hadday dad fadhiyaya oo iska fadhiyaya in qofka aan ku dilay iska fadhi waxay tahay inaan qofka ku xukumanta aysan jirin wada kasta oo isku fahanka iyo wanaag uu jiro si meesha wanaag baa lagu soo wada degay laguma soo wada degin xoog waxa rabaa in dib loo xasuusto walaalahay inaan meeshan xoog lagu soo wada degin nabad lagu soo wada degay marka nabadii iyo sharafta lagu soo wada degay in la ilaaliyo loo baahan yahay aan waxa guud wala ka sameeyo